بسم الله الرحمن الرحيم وحا active inoo ah casharadii aan ku baranayna luqadda Englishka tutorial lessons new concept English practice and progress anagoo ka qaadan doono waa engineer Maxamed Axmed Bare casharadii waxaan la soconaa tutorial lessons full training waxay kala soo xiriiri kartaan hotmail iyo gmail iyo direct number iyo website-ka somaligroups.com iyo waliba waxay kala soo xiriiri kartaan Facebook Twitter Instagram Google Plus YouTube iyo social media oo dhan baan nagala soo xiriiri kartaan sidaa darteed marka waxaan sii guda galaynaa cashirkeennii oo ahaa inaan maanta qaadano page waxaan sii maraynaa 87 lesson 33 page 87 lesson 33 waxaa la soo baxdaa buuggaaga page 87 lesson 33 out of the darkness ka bixidii laga baxay mugdiga ka bixidii of the darkness laga baxay mugdiga lesson 33 page 87 buu cashirkeena maanta ka bilaabanaya walaalayaal marka cashirkeenii oo noo socdo taxanaha ayaan ku sii guda jirnaa cashiradeenii taxanaha ayaa halka ka sii soconayo marka cashiradeenii taxanaha waa ku sii guda jirnaa walaalayaal cashiradan idinko si fiican oo faahfaahsan u dhageysan doona ama u arki doona maqal iyo muuqaal idinko uga heli doona barta internetka marka sidaa darteed waxa kaliya muhiim ah inaad ku qortid baro English practice wuuna ku soo baxay adagool ku qortid marka sidaa darteed out of the darkness waa ka bixitaankii mugdiga laga baxay nearly ugu dhawaan a week muddo isbuuca baasad ayay dhaaftay before ka hor the girl gabadha was able intaysan awood u helin to explain inay tafaasiil ka bixiso what had happened wax ku dhacay out of the darkness ka bixidii mugdiga cashirkeeni waa lesson 33 nearly ugu dhawaan ama taqriiban a week isbuuc baasad ayaa laga joogaa before ka hor the girl gabadhi was able intaysan awood u helin to explain inay ka sharaxdo ama ka sheekayso ama inay tafaasiil ka bixiso what had happened wax ku dhacay to her iyada on the afternoon one afternoon galbaha ka mid ah she set out waxay ka soo ambabaxday from the coast waxay ka soo ambabaxday xeebta a small boat from the coast ayay ka soo ambabaxday walaalayaal xeebtay ka soo ambabaxday a small boat iyadoo dooni yar saaran and was catch in storm waxaa ku dhufatay duufaan storm waa caadifad duufaan wey iyo was catch waxaa ku dhacday oo xanibay storm duufaan ayaa xanibay towards even xilligii fiidadkii markay ahayd the boat doontii struck a rock waxay ku dhacday dhagax jamal ah rock waa jamalka dhagaxa waxa u taqaanaan midka dhagaxa caadiga ah oo stone baa u taqaanaan strike waxay ku dhacday a rock dhagax weyn oo jamal ah and the girl gabadhi jumped waa ay ka booday into the sea biyaha ayay ku booday ama badda dhexdeeda then markaa intaa kadib she swam way dabaalatay to shore iyadoo xagga xeebta u soo dabaalanayso after spending kadib markii ay ku qaadatay the whole night habeenkii oo dhan in the water biyaha dhexdooda during that time inta xilligaa lagu guda jiray oo biyaha ku dhex socotay ee ku dhex dabalanaysay she covered waxay jartay a distance masaafo dhan 8 miles early next morning subaxnimadii xigtay habeenkaas she saw waxay aragtay a light iftiin bay aragtay a head of a new waxay garatay markaa oo madaxeeda ku aadan she knew waxay fahantay ama ay garatay she was nearly inay u dhowdahay the shore xeebta inay u dhowdahay because sababtoo ah the light iftiinkii was light up waa kor ayuu u baxay on the cliffs wuxuuna ka muuqanaya oo ku soo dhacay iftiinkii jamalka oo dhagaxa fiiqan oo cliffs waxa loo yaqaanaa jamalka oo biyaha ay ku dareeraan dhagaxa jamalka oo afka fiiqan leh ayaa loo yaqaanaa cliffs on arriving markay soo gaartay at the shore xeebta the girl gabadhi struggled up waxay miciin biday up iyadoo qabsatay the cliffs dhagaxii jamalka ahaa towards kaasoo ku aadanaa the light iftiinka she had seen ay aragtay that was all she remembered waa inta ay xasuusatay when goortii she iyada woke up ay toostay a day later maalinka xigay she found waxa bay aragtay she
she found waxa bay is aragtay herself nafsadeediyo in hospital stuck bay iska dhaxashay. she found waxay iska dhaxashay herself nafsadeedii in hospital isbitaalka isku aragtay. marka walaalayaal cashirkeennii waan ku soo celinayaa si aad si faahfaahsan ugu wada fahantaan. marka cashirkeennu wuxuu ahaa lesson 33 idinkoo buuggiina la soo bixi doono key structure-kana buuggan ka akhrin doonaa. out of the darkness ka bixidii mugdiga near ugu dhowaan. marka a week passed isbuuc baa laga joogaa before ka hor the girl gabadha was able markii ay awood u heshay to explain inay ka sharaxdo ama to explain inay faahfaahin ka bixiso what had happened wax ku dhacay to her iyada one afternoon galbaha kamida one afternoon galbaha kamida she set out waxay ka soo ambabaxday from the coast xeebta a small boat iyadoo wadata doon yar and was catch in a storm waxaa ku dhufatay duufaan ama istaajisay towards iyada waxaa xanibtay duufaan baa xanibtay marka towards evening xilliyadii fiidadka ay ahayd the boat doontii struck a rock waxaa ku dhacay dhagax oo jamal ay ku dhacday and the girl gabadh jumped waa ay boodeen sidoo badda isku tuurtay then intaa kadib she swam waa ay dabaalatay to shore marka dhinac xeebta ayay u dabaalatay oo dhinaca badweynta maysan dabaalan to shore waxay u dabaalatay dhinaca xeebta after spending markii ay ku qaadatay the whole night habeenkii oo dhan in the water biyaha markii ay ku qaadatay habeenkii oo dhan biyaha ay ku wada jirtay during intay ku guda jirtay marka that time xilliga ay biyaha ku jirtay she iyada covered waxay jartay a distance masaafo la-eg of 8 miles 8 meel oo kale ugu yaraan early next morning subaxnimadii xigtay she saw waxay aragtay a light iftiin ahead madaxeeda ku aadan she knew markaa waxay garatay she was near a shore inay u dhowdahay xeebta ay u dhowdahay because sababtoo ah the light iftiinkii was light iftiinkii up kor ayuu soo baxay on cliffs wuxuu ka muuqanayay jambiga jamalada ayuu soo ifiyey iyo dhinacyadoo dhan buu soo ifiyey. okay marka the girl gabadhii cliffs wuxuu soo ifiyey cliffs waxa weeye dhagxaanta waaweyn oo jamalka ah on arriving at the shore markii xeebta ay soo gaartay on arriving markii ay soo gaartay at the shore xeebtii the girl gabadhii struck led up waxay maciin biday the cliff dhagaxa towards ku aadan inay qabsato the cliffs dhagaxa towards inay ku dhagto the light iftiinkii she had seen ay aragtay oo kale that was all she remembered waa inta ay xasuusatay that was all she remembered intay xasuusatay when goortii she woke up ay kacday a day later maalin kadib she found waxaan bay isku aragtay herself nafsadeediyo in hospital oo hospitalka joogta key structure-ka u soo gudba marka key structure-ka waa grammarka ku jira casharada aan baranayno where did he go xagay buu aaday he went wuxuu u socdaa to the ayuu u socdaa marka he went wuxuu aaday oo kale lamid ah waa isku macna labadan he went wuxuu aaday where did he go xagee buu aaday he went wuxuu aaday to marka toda wuxuu aaday cinema shaneemada ayuu aaday compare markas garab dhig key structure to 9 oo kale aan ku soo aragnay read marka aqri this sentence jumladahan carefully si taxadira by citation adoo u fiirsan doon towards erayada adoo u fiirsan doona marka in italics farta jiifta ku qoran often badanaa use waxaan u isticmaalnaa phrases-yada phrase beginning ku bilaabanaya with her waxay ku bilaabanayaan where which iyo direction kuwaasoo jiha noo tilmaamay phrases where eekayaasha with an iyo to iyo from oo kale marka cashiradii taxanaha oo aan ku guda jirnay ayaa sii dhamaanaya marka sidaa darteed waa anigoo ah maxamed maxamuud bare waxaan idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullah